gudida dhaqaalaha golaha guurtida Somaliland ayaa maanta kulan albaabada u xidhan yihiin la yeeshay mas'uuliyiinta banka dhexe ee Somaliland iyadoo lagu gorfeeyay qaabka loo xakameyn karo aafada sicir bararka. Kulankani oo qaatay saacado isla markaana warbaahintu dibadjoog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gudida dhaqaalaha golaha guurtida Somaliland isagoo ka warramay waxyaabaha ay ka wada hadleen waxaana kamid ah hadaladiisii sida tan. Tiyaanu nahay gudiga dhaqaalaha ee golaha guurtiga bal inaan ka xogaal wareysano ama aan xog ka helno halka uu marayo dollarkan maaragtay maalinta ka dambaysa cirka isku sii shareeraya iyo sababaha dhalinaya taasina xogtiina wayna siiyeen su'aalo waxaan weydiinanayna waanu weydiinay arrintu markaa ay safgarad ilaa laba qolo oo isku waramasa iyo su'aalihii ay weydiiyeen nimankii ka socday gudiga dhaqaaluhu intiiba way nooga jawaabeen annaguna wixii aanu haynay waanu u sheegnay si wanaagsan ayaanu isku afgarannay halkanna wax natiijo iniga sheegaya ma jirto sababta oo ah waanu sii soconanaa ilaa iyo halka ay ku intihooto hore waxaan u aragnay dahawiyo talisom iyagana akhbaartaanu ka ururinayna waanu haynaa iyagana sidii si leeguun baanu u waraysanay intaa ayay xaaladayadu ku saabsanayd si wanaagsanna waanu isku afgarannay haddii ilaahay yidhaaho waanu sii soconanaa ilaa halka aynu nala gasho. Xukuumadda Somaliland ayaa dadaalo kala duwan ugu jirta qaabkii loo xakameyn lahaa sicir bararka. Waa Cabdisalaan Axmed Cawad, Cabdi Germany, Bulsha TV, Hargeysa.